waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego inuu ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu diyaar u yahay una u ahaa inuu guto waajibaadkii loo igmaday waxaa jira goobo fara badan oo dalka ka mid ah oo saacadan idinla hadlayo uu dagaal ka jiro oo mataqaana ay ka dagaalamayaan ciidanka uu ka dagaalamayaan mar kasta askariga ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay naftiisa inuu hor ummadan qaaliye qiimaha weyn ka weyn oo qofku u bixin lahaa ma jiro qiimaha ugu weyn mataqaana ugu sareeya waa nafsadiisa iyaduna diyaar la yahay taas baa waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego inay ku qiimeeyaan raggaas maaragtay saas ugu diyaara mar kastana tusa dadka Soomaaliyeed Soomaalida sheeganaya isla markaas raba inay dhibaato u geystaan shacbiga Soomaaliyeed kay ka dhasheen ay u dhasheen dalkoodii mar kasta aan u ogolayn in dadka nabad helo aan u ogolayn mataqaana deganaansho la helo aan u ogolayn marnaba in la helo maxaan ku raahdaa horumar hortaagan in uu yahay ninka ka soo horjeeda jiritaanka ummadda Soomaaliyeed maxaa yeelay yani waa nin u soo tafaxaytay runtii in ummadda Soomaaliyeed la dagaalamo oo haddana Soomaali sheegeen ninka caqli xun inuu jiro u malayn maayo qofka saas ku aansaday oo rabo dadka Soomaaliyeed inuu laayo Soomaalina ah rabaan inuu ku noolo dalkani waa nin caqli lahayn oon caqli ku jirin waxaan leeyahay caqliga Allah ku soo celiyo kuwa wadana sidoo kale caqliga Allah ku soo celiyo dad caqli ma aha sabab ummadda Soomaaliyeed adigoon kala soocin adu leeysay anigu ma garanayo qofku justification uu helayo mid diini iyo mid caqli iyo mid siyaasadeed midna u helamayso ayagana waxaan leeyahay ka waantooba mudadaas khaldan aad ku socotaan ka waantooba haddaad diidaan inaad ka waantoobi weydaan oo dee aad iska dayi weydaan waxaa khasab ku ah ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed inuu idinla dagaalamo sidoo horeba idinkula dagaalamayay oo leedinka celiyo dhibaatada shacabka Soomaaliyeed ku haysaan dhibaatada aad ku haysaan in leedinka celiyo leedin tuso marka tabartiina intay la eg tahay marka idinka doortay inaad ku dhimataan dagaal xaq darro ah oo marnaba aadan ku guuleysanayn aakhiri adduun midnaba adduunkana kuma guuleysanaysa aakhirana waa loo inaad ku guuleysanayn marnaba dagaal xaq darro aad ku jirtaan annagu waxaan dad xaq diriira oo ogol inay u dhintaan sharafta ummadooda oo daafaca dadkooda iyo sharaftooda marka meel badan buu dagaal ku jiraa ruuxantii hadda ma rabo inaan hoos u galo iraado meel hableen laakiin aniga ayaga waa iska warqabnaa meelaha dagaalkiina ayaga way og yihiin meel ay ku guuleysteen oo hadda la yiraahdo waxbaan soo gaarnay ma jirto marka ayaga guul wax u ah inay qof Soomaali dilaan guushooda waa intaas badankoodana waxay la dagaalamaan dadka aan iska dhicin karin dadka iska dhicinaya ma rabaan in la dagaalamaan iska dhicin kara ma rabaan in la dagaalamaan